السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوة الوحان كان ينقصوا ديارنا وربحنا وقدم بكورونا فيروس جودهان عالم كي كيسس كعصبي لسوريا فريلواتن كيسا عائلة صدافي وعائلة يهاتن لديوان قلين عابوقاني هاليلدد قاريا 6 مليون iyo 500 kun oo qof guudahaan caalamka dhimashadu ayaa iyadan cagaynaysa ku dhawaad 400 kun oo qof halka 3 milyan dad ka badan ay lahaatan ka bogsadeen caabuqani waxa ay lahaatan cudurkan la ildaran dad gaaraya 3 milyan oo qof iyadoo boqolkiiba 2 ay yihiin kuwa xaaladoodu liidato caabuqani ilaa waqti xadarkan gaaray dalal gaaraya 213 dal oo caalamka kamid ah haddaanu soo qaadano dalal dhowr ah uu saameeyay waxa hogaaminaya dalka Mareykanka tirada guud iyadoo laga soo sheegay ku dhawaad 2 milyan oo kiis waxaana dalkaasi ugu dhintay cudurkani 109 kun oo qof waxaana ka bogsaday dad gaaraya 700 kun oo qof dalka Brazil ayaa kaalinta labaad ku jira guud ahaan kiisaska ugu badan caalamka waxayna gaareen dalkaasi 580 kun oo qof dhanka geeska Afrika haddaanu eegno Kenya ayaa diiwaan gareysay kiisas gaaraya guud ahaan 216 kiis halka 74 kamid ay geeriyoodeen 553 ay ka bogsadeen dalka Soomaaliya sidoo kale kiisaska guud waxa ay gaareen 2146 halka 79 ay geeriyoodeen halka 406 ay ka bogsadeen halkaasina waxa ku eg xubinta maanta aanu ku eegayno wararkii ugu dambeeyay coronavirus guud ahaan caalamka fadlan hadaad ku cusub tahay channelkan subscribe saar kadib gambalelka fursi aad la socotid waxyaabaha xiiso halkan soo gelin doono halkan waa deegaanka TV anigu waxaan ahay Magan Xasan aad baad u mahadsantiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.